وعلى آله وصحبه أجمعين. قربك هوينك هرقرن لمان هوين وينها حسبك وضني هوغانك حكياشا iyo madaxda kale xisbigaba ee ka soo qayb gashay aqoon isweydaarsigan ku saabsan qorshaha ololaha ee haweenka xisbiga. waxaan ku salaamayaa dhamaantiin mar labaad salaanta islaamka. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran, gudoomiye ku-xigeenada iyo dhammaan gudida heer qaran iyo dhammaan gobolada iyo mas'uuliyiinta kale ee garabka haweenka ee ka soo qayb galay seminaarkan. waxaan ugu mahadnaqayaa diyaargarowga ay durtaba diyaargaroobeen iyadoo hadda lagu dhawaaqay waqtigii doorashada. waxaan si weyn u soo dhaweynayaa gabadha miisaanka weyn leh qadan oo waan soo dhaweynayaa si weyn. إن شاء الله waxaynu diyaar u nahay inaynu dhageysano qorshaha naylo soo bandhigayo isagoo jooga waliba gudoomiyihii campaign-ka iyo hogaankii oo dhammaan wadada jooga maanta iyo xogayaashiba waxay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan seminaarka, dhageystaan wixii ku dari karaya ku daraan qorshaha ololaha ay soo bandhigtaan kaasi inuu gudbin doono dhammaan oo dadajin doono gobol iyo degmo iyo tuulaba. waqtiga noo haraysa la sheegay waqti kooban weeye oo aad iyo aad u kooban. waa bilahaas oo qorshaysan oo ay ku jiro qaybintii kaararka muwaadiniinta ka qaybgalaya doorashada, oo ku jiro xilligii ololaha doorashada, oo ku dhex jiro Ramadaan. marka intaas oo dhan isku daro runtii waqtiga haraya aad u kooban. waxaan looga baahan yahay inaynu daadajino maamulka, inaynu dadaallo inay fariinteenu gaadho albaab kasta oo ku yaala gobol kasta iyo magaalo kasta. fariinteenu inay gaadho muwaadin kasta. waxaa loo baahan yahay inaynu ka horeyno axsaabta kale oo kaga horeyno diyaargarowga iyo qorshahaba. waxaan moodaa inaynu ka horeyno inagu hadda waxaynu ka hadlaynaa maanta waxa weeye sidaynu geli lahayn ololihii doorashada. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haweenka xisbiga dadaalka ay muujiyeen iyo goor hore tooska ama diyaargarowga. aad baan mahadsantihiin.